سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى nin baa wuxuu dreamkiisu ahaan jiray in uu fuulo buuraha tan ugu dhaadheer maalin maalmaha ka mid ah ayuu buurtii uu jeclaa ayuu fuulay markuu dhaxda marayo uu buurtii uu bartankeeda marayo irka u sii dhow yahay oo meel sare uu marayo ayay meeshii inta lugta uga hoos baxday buu ka soo wilaawilagay markaas meeshii ka soo dhacay dhaxda markuu marayo geed qabsaday geedkii markuu qabsaday ayaa wuxuu yiri ilaahay u badbaadi waa habeen mugdi ah meel dheer buu ka soo dhacay maanta dhan buu soo socday wax yar baa kor uga dhiman laakiin markuu meeshii ka soo dhacay ayuu yiri ilaahay u badbaadi geedkii buu haystaa wuu oynayaa cid u dhow male cid u yaqaan male ilaahay u badbaadi asagoo sidii ku oynaya ayaa waxa uu maqlay sawd cod dhahaya haye aan ku badbaadiyay siidaa geedka allahu akbar aan ku badbaadiyay geedka siidaa markaasa wuxuu rabaa in la badbaadiyo haddana inuu sii daayo ma rabo geedka siidaa aan ku badbaadiye markaasuu ku dhagan yahay geedka maanta waxaad la mid tahay qofkaas oo kale dukaankaagii baad ku dhagan tahay gurigaadii baad ku dhagan tahay shaqadii baad ku dhagan tahay qofku inuu asbaabta isticmaalo uu dukaamo furto uu shaqaysto waa sunno asbaabtuna way wanaagsan tahay akhdu asbaab laakiin qofku inuu tala saarto ayaa la diiday maanta imise qof ayaa aaminsan shayga haddii waayaan inay dhimanayaan qofka muslimka ah ma aha qiidadiisu noocaas ma aha qofka muslimka ah waa qofka Allah ku dhagan subhanahu wa ta'ala war markasta ilaahay qabso war markasta ilaahay cusko dheh ilaahay baa waligayga ah حسبي الله إله سبحانه وتعالى جل شأنه فإن تولوا فقل حسبي الله ورمركز إلهي وفرنده أليس الله بكاف عبده يوصل إلهي أدوم كيس كفر الليل ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك إلهي تلسارته إلهي وكفرنيه جل شأنه ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله أكبر ورا إلهي تلساره إلهي اسكحر إلهي عسكو إلهي بري إلهي كلي عابد إلهي السجود كلا لا تطعه واسجد واقترب إلهي السجود إله سبحانه وتعالى وكعزيني بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته